taariikhda dalalka adduunka maxaa ka taqaanaa dalka Japan wax badan ka ogow oo aadan hore ugu ogeyn. Barnaamijka nolosha iyo taariikhda adduunka waa barnaamij ka mid ah barnaamijyada ka baxa Muhiim Media. Waxaa lagu lafguraa ama lagu falanqeeyaa waxyaabaha ku saabsan dalalka, ururada caalamiga, kuwa Carabta iyo ururada Afrika intaba. Barnaamijkan wuxuu ku siin doonaa macluumaad walba ee ku saabsan ururka ama dalka maalintaas miiska saaran, siyaasad ahaan, fikrad ahaan iyo awood ahaanba. Dalka Japan waxa ay leeyihiin taariikh soo jireen ah taas oo soo bilaabatay kahor tirsigii miilaadiga ama dhalashadii Nabi Ciise kahor 36,000 oo sano. Dalka Japan markii la soo gaaray qarniyadii dhexe waxa uu ka mid ahaa dalalkii ay ku soo duuleen gumeystaha reer Yurub. Intii u dhaxaysay 1500 ilaa 1600 Japan waxa ku loolamay laba awoodood oo kala ah mid gumeystaha taageersan iyo mid gumeystaha lidku ah. Sanadku markuu ahaa 1600 dagaal dhexmaray waxaa ku guuleystay kuwii taageersanaa gumeystaha. Dagaalkaas oo lagu magacaabay Chingahara 1603 waxay dhiseen boqortooyo lagu magacaabo Shogunate waxaana boqor loogu dhigay Tokugawa Ieyasu nin loogu magacaabo. Wuxuuna caasimad ka dhigtay magaalada Edo taas oo hadda loo yaqaano magaalada Tokyo. Waxqabadkii ama legacy ay ka tageen boqortooyadii Shogunate lagu magacaabayay waxaa ka mid ahaa inay dhiseen xiriirka caalamiga ee siyaasadda, inay dhiseen xiriirka caalamiga ee ganacsiga, inay dhiseen warshado wax soo saar far badan oo Japan yeelato. sidoo kale waxa ay qayb weyn ka qaateen wax soo saarka beeraha sida khudaarta noocyada kala duwan, sokorta, noocyada maandooriyaal ah kuwaas oo loo dhoofinayay dalka dibaddiisa. Sidoo kale waxay dhiseen dekedo kuwaas oo ay ku soo xirtaan maraakiib caalamiga ah ee dalalka caalamka u dhoofiyo. waxyaabaha lagu eedeynayo waxaa ka mid ah inay ka mid ahaayeen dadkii gumeystaha la safnaano in ay lid ku yihiin dhaqanka iyo diinta ay aaminsaneed dadka Jabaneeska ama guud ahaan qaaradda Aasiya taas oo lagu magacaabay Confucianism. Confucianismada waxaa aaminsanaa dalalka Kuuriya, Japan iyo Shiinaha. waxay dhiseen guddi isdhaf ah taas oo ka koobnaa dalalkaasi. inkastoo ay guddigaas dhiseen haddana waxba kama bedelin fikirkii laga aaminsanaa sababtoo ah dadka waxay niyadooda ka saari waayeen ama waxay xusuusnaayeen waxba ku dhacday sanadkii markuu ahaa 1600 magaalo loogu magacaabo Shimara taas oo dadkii degnaa ee aaminsanaa dhaqanka diinta Confucianismada laga rabay waxaa lagu bedelay Jabanees aaminsan diinta Kirishtaanka iyo dad caddaan oo Kirishtaan. sanadkii markuu ahaa 1867 waxaa isbahaysadeen labada qabiil ee Japan u waaweyn kuwaas oo lagu magacaabi jiray Kyoshi iyo Satsuma. dagaalkaas oo ay la galeen boqortooyadii Shogunate. guusha dagaalka markay gaadeen kadib sanadkii markuu ahaa 1867 guusha dagaal kadib wax ay caleema saareen ama ay dhiseen wiil yar oo 14 jir ah kaas oo lagu magacaabi jiray Meiji amba Empire Meiji. Empire Meiji oo boqor laga dhigay. sanadku markuu ahaa 1889 Empire Meiji waxa uu qoray dastuur kaas oo dib loo qoray ama dib loo isticmaalay sanadku markuu ahaa 1947 dagaalkii labaad ee dunida kadib. sidoo kale Empire Meiji waxa uu dhisay gole baarlamaan kuwaas oo soo doortay ra'iisul wasaaraha. sidoo kale waxa uu dhisay ciidan xoog leh oo ay Japan yeelato kuwaas oo la loolama ama la dagaalamo gumeystaha. waxyaabaha lagu eedeynayo waxaa ka mid ah inuu hor istaagay horumar iyo nabadgelyo oo Japan ka socday intii ay hogaaminaysay boqortooyadii ka horeysay oo loo yaqaanay Shogunate. inkastoo uu albaabada u furay dalalka reer galbeedka ganacsi ahaan. dagaalkii Russo sanadku markuu ahaa 1895 boqorkii boqortooyada Ruushka ninka lagu magacaabo Tsar Nicholas kii labaad waxa uu rabay inuu maamulo dekedaha dhaca wadamada qaaradda Aasiya. dekedahaas waxaa ka mid ahaa dekedo ku yaala dalka Japan iyo dekedo dalka Japan dibaddiisa ku yaala kuwaas oo ay maamulayeen maamulka Empire Meiji. Empire Meiji waa uu diiday arrintaas kadib isqabqabsi dheer iyo wadahadal fashilma dheer kadib 1904 waxaa dhex maray dagaal dalka Ruushka iyo Japan. dagaalkaasi waxaa ku dhintay dad kor u dhaafay 150,000 oo qofood. sanadku markuu ahaa 1905 ayuu istaagay kadib wadahadal uu dhex dhigay madaxweynihii dalka Mareykanka Theodore Roosevelt. waxa uuna ku helay abaalmarinta Nobel Peace Prize loo yaqaano abaalmarinta nabadda ee loo yaqaano Nobel Peace Prize.
dagaalkaas ayaa sidaas kusoo idaaday. Taariikhyahanada qaar dagaalkan waxay ku sheegaan World War Zero inuu ahaa ama dagaalkii ebereed ee dunida. Guushaas Japan ay gaartay kadib, Japan waxaa loo aqoonsaday inay ka mid tahay dalalka ugu wadda badan. Sidoo kale waxa ay ku biirtay isbahaysigii Ingiriiska, Mareykanka, Ruushka iyo Faransiiska ay ku mideysnaayeen dagaalkii koowaad ee dunida. Sanadku markuu ahaa 1914 waxaa dhacay dagaalkii koowaad ee dunida. Waxaa isku dhacay labada isbahaysi kuwaas oo ahaa dalalka Ingiriiska, Mareykanka, Faransiiska, Talyaaniga, Ruushka iyo Japan. Waxayna mid ku ahaayeen isbahaysi loo yaqaano Central Powers kuwaas oo ahaa boqortooyinkii hore sida Cusmaaniyiinta, Jarmalka, boqortooyadii Jarmalka, boqortooyadii Austro-Hungaria. Japan waxay ka mid ahayd labada isbahaysi ee isku dhacay. Si gaar ah waxay ku qorneyd aagga boqortooyada Jarmalka. guushii Japan ay ka gaartay boqortooyada Jarmalka isbahaysiga ay ka tirsanaayeen wax uu ka abaalmariyey dhul cusub iyo xiriir ganacsi fara badan. Dhulka la siiyey waxaa ka mid ahaa Shiinaha intii uu Ingiriiska dib ugu qaaday dagaalkii labaad ee dunida. Markii uu Jarmalku ku duulay Ruushka, Japan waxa ay heleen chance kaas ay islahaayeen waxaad qabsan doontaa dhul fara badan oo qaaradda Aasiya ka mid ah. Sidaasna waa ay dhacday, waxay weerareen dhul fara badan oo Aasiya ka mid ah. Sida dhulkaas Mareykanka ayna diiday, waxa uuna ku amray inay Japan dhulkaas isaga baxdo ama inuu la dagaalami doono. Sidaas darteed Japan waxay ku biireen isbahaysigaas oo ay ku mideysnaayeen Jarmalka, Talyaaniga iyo Japan. Japan waxa ay weerareen ciidanka badda ee Mareykanka kuwaas oo degnaa dekedda lagu magacaabo Cherbourg. Sanadku markuu ahaa 7 December 1941. Sanadkii koowaad ee dagaalka, Japan waxa ay gaareen guul fara badan iyagoo qabsaday dhul fara badan oo qaaradda Aasiya kuwaas oo ay ka mid yihiin Philippines, Singapore, Burma iyo meelo fara badan. Sidoo kale waxa ay xidheen isku socodka isbahaysigii la dagaalamayay ee isku socon lahaayeen qaaradda Yurub iyo Australia. Bishii June 1942 Japan waxaa ka dhammaaday kharashka iyo sahaydii ciidan ay lahaayeen kuwaas oo ku sugnaa jasiirad lagu magacaabo Solomons. 1943 waxa ay dib ugu soo saartay ciidankeeda jasiiradda oo dhan. Sidoo kale dowladdii Japan ee hogaaminayay ninka lagu magacaabo Ieyasu waa ay dhacday. Sidaasna la rabay inuu ku dhammaado dagaalkii labaad ee dunida, gaar ahaan aagga ay Japan ka joogtay ama dagaalka ay Japan ka joogtay qaaradda Aasiya kaas oo la yaqaanay dagaalkii Midway. Laakiin taasi ma dhicin. Mareykanka waxa uu waday inuu iska diyaarsado howlihiisa atomic bombka. Hogaamiyihii dalka Japan ee dowladdii dhacday ma ahee mid kale ee la wareegtay hogaamiyaha cusub ee dalka Japan ninka loo magacaabay Kentaro Tsugi waxa uu rabay inuu wadahadal la furo. Wadahadalkaas oo garwadeen ka ahaa dowladdii Midowga Soviet, maadaama dowladda Midowga Soviet ay dagaal toos ah la gelin dalka Japan ama maamulkii Japan. laakiin Mareykanku waa uu diiday arrintaasi. Burburitaanka wadahadalka kadib, sanadku markuu bishii Juulay 1945 Japan waxa ay dowlad ahaan ugu dhawaaqday inay isdhiibtay. Sanadku markuu ahaa 1945 gaar ahaan 6 August waxaa magaalada Hiroshima lagu riday atomic bomb. 3 maalin kadibna 9 August waxaa atomic bomb-ka lagu riday magaalada Nagasaki. Bombkaas oo ay ku dhinteen dad kor u dhaafay 140,000 oo qof, 70% ismihii Japan waa uu burburay. Sanadku markuu ahaa 2 December 1945 Japan waxaa ciidankeedii ugu dambeeyay ka soo baxay magaalada jasiiradda Manchuria, taas oo ay ka mid ahaayeen meelihii ay Japaneesku haysteen. Intii u dhexeysay 1945 ilaa 1950 Japan waxaa gacanta lagu hayay guddi ay ka koobnaayeen dhammaan dalalkii dagaalka labaad ee adduunka ku guuleystay. guddigaas oo lagu magacaabay ISCAP, taas oo hormuud ama hogaamiye ka ahaa generaal Mareykan ah kaas oo lagu magacaabo Douglas MacArthur. Douglas MacArthur waxa uu Japan ka dhigay sidii ay Mareykanku doonayay, ama waxa uu Japan u dhisay maamul ay Mareykan raali ka yihiin oo lagu dhisay xuduudii Mareykanka ay aaminsanaayeen dimuqraadiyadda sidii ay doonayeen. Inkastoo 1947 uu qoray dastuurkaasoo uu ahaa midkii uu qoray qorkii ninkii lagu magacaabay kaas oo hogaaminayay Japan intii uu bilaabay dagaalkii koowaad ee adduunka ka hor. Japan waxay ka mid tahay dalalka uu Mareykanku ku faano markii uu doono inuu dalka dhaadhacsiiyo inuu dhisi doono dowlad wanaagsan. Waxa uu tusaale u soo qaataa Japan.